dowladda Suudaan ayaa wafdi heer sare ah u dirtay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta si ay wadaxaajood ula galaan saraakiisha dalka Mareykanka ee ku sugan halkaasi iyadoo dalkaasi uu doonayo in laga saaro liiska dalalka uu Mareykanku u aqoonsaday argagixisada inay maalgeliyeen. wafdiga Suudaan waxa hogaaminaya hogaamiyaha dalkaasi General Abdel Al-Burhan. Mareykanka ayaa Suudaan ku daray liiskan sanadii 1993 kadib markii ay taageero u muujiyeen kooxaha Islaamiga ah oo uu ku jiray hogaamiyihii geeriyooday ee Al-Qaacida Osama bin Laden kaasi oo muddo 5 sano ah ku noolaa dalkaasi. wadaxaajoodkan ayaa sidoo kale qayb ka ah in Mareykanku Suudaan ka doonayo lacag tiro badan oo ay magdhow ahaan u siiyaan qoysaska dhibanayaashii weeraradii argagixiso ku dhintay amaba ku waxyeeloobay. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale isku dayaysa in ay Suudaan ku qanciso inay soo celiso xiriirkii ay hore ula lahayd Israel. Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa uu ku howlanaa sidii uu soo celin lahaa xiriirka wadamada Carabta iyo Israel isagoo ilaa hadda ku guuleystay Imaaraadka Carabta iyo Bahrain inay caadi ka dhigaan xiriirka ay la lahaayeen dalka Israel. sidoo kale warar laga helay ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Mareykanku uu ballan qaaday in Imaaraadka Carabtu Suudaan siiyo kaalmo dhaqaale 3 sano ee soo socda. waxaana xusid mudan bishii August in xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mark Pompeo uu sheegay in Mareykanku uu rajaynayo inuu caadi ku soo noqdo xiriirkii u dhaxeeyay Israel iyo Suudaan xilligaasi oo uu ku sugnaa magaalada Khartoum oo uu booqasho ku joogay.